duleedka magaalada Buuhoodle maanta waxaa lagu gubay daawooyin dhacay waxaana daawooyinkaasi gubay maamulka cisbitaalka Al-Xayaad ee ku yaala magaalada Buuhoodle waxaana goobjoog ahaa fagaarihii lagu gubayay daawooyinkan mas'uuliyiin ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle iyo waliba xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee Buuhoodle ugu horeyn goobtii lagu gubayay daawada waxaa ka hadlay Cabdifataax Maxamed Cabdulle oo ah maamulka Al-Xayaad ee magaalada Buuhoodle waxaana uu sheegay in daawooyinkan ay ugu talagaleen in dadweynuhu ay arkaan in cisbitaalka Al-Xayaad isagu qayb ka qaadanayo horumarka ka socda deegaanka Buuhoodle sidoo kale halka waxaa ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka Buuhoodle Cabdifanax Cali Cawil mas'uuliyiin ka tirsan cisbitaalka Al-Xayaad iyo waliba bacda salaan waxaynu maanta halkan isugu nimi in aan gubno dawooyinkii ka dhacay Al-Xayaad Pharmacy sidaynu wada ognahay dawo kasta waxay leedahay date wax kasta oo la iibiyana waxay leeyihiin date sidaa daraadeed waxaan rabnaa waayeel hortiisa caana loogu barxaa inaan dadweynaha tusno dawo kasta ma jiro pharmacy aysan dawo ku dhicin sidaa daraadeed inaan dadweynaha tusno in aan iyadoo uu markhaati ka yahay golihii deegaanka iyo bulshada qaybaheedii kala gedisan fagaaraha aynu maanta isugu soo baxnay xalaal iftiin baa la cunaa aan ku gubno wix alaala wixii dawo ee ka dhacay Al-Xayaad Pharmacy haddaba waxaan ugu baaqayaa dhammaan bahda caafimaadka iyo cid kasta oo mas'uuliyad u haysa dadweynaha in ay doorkooda qaataan barnaamijkooda ilaaliyaan bulshadana cid kastaaba waxay u haysaa ay mas'uul uga noqoto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aftax daawada intaan dhicin ka hor dadka jilicsan waxa u soo weyday rasuulkoodii sida runtii Cali oo adigan qudhaada ayaa duubay barnaamijkii aan ku caawinaynay dadka qaxoontiga iyo dadka caawimada u baahan laakiin taa macnaheedu ma aha dadka in waxa dhacay la siiye dadka wixii aan ku caawinayna wax deedkooda fog yahay oo wanaagsan baan u siiyay thank you waxaan halkan bulshada uga cadaynaynaa ama uga baahinaynaa xarunta Al-Xayaad Community Health Center inay gubayso oo ay maanta u soo bandhigayso bulshada daawadii dhacday muddo hadda dhowr sano gudahooda horana inay bulshada mar loo tusay haddan ka horeysay in la gubay waqtigan ku xigay daawada ay dhacday waxaan markaa halkan maanta ku gubaynaa daawadii dhacday muddo 3 sano gudahooda oo ururisahayd meel lagu weydiinayay waxaanuna kula talinaynaa dhammaan goobaha caafimaadka kale ee deegaanka ka jira iyaguna inay bulshada tusaan inay gubaan wixii dhacay ee waqtigoodii dhamaaday taasoo in badan oo bulshada ka midi markii hore ay kaga sugnaayeen kalsooni darro haddana hadda ku kordhinaysa bulshadu inay aaminaan daawada lagu hayo deegaanka ama goobaha caafimaadka taala inay tahay daawo la ilaaliyo la kantaroolo ka noqday saynu la socono waxa weey daawada dhacday dhibaato badan baynu haysaa alla isticmaala waa dadku waxa weey la siiyo marka qofku waxa la Soomaaliya waxa ku maamahada seexayna loo sayl maxay tahay loo xigtay ilkano ku nabad kala qofku ma aha inuu eega ganacsigiisa iyo inuu lacag helo laakiin waa inuu eega caafimaadka iyo bulshada waxa danta ugu jirto marka waxaan ku soo koobayaa inaan maxay badinaynin runtii aad baan ugu faraxsanahay caafimaadkuna waa muhiim qof kasta waxa weey danba ugu jirtay iyo kadib waxa dardaaran oo aan soo jeedinaya ma aha in daawada quri dhacdo ma dadka deegaanka waxaan u sheegayaa oo aan leeyahay ku dayda ajar iyo xasanaad Allah siiyo qolada dhaqaatiirta idina sidaas oo kale ilaahay bay idinka cawilaya waxyaalaha dhaca waxa kamid ah sharaabku waa kamid raashinku waa kamid daawadu waa kamid waxaan leeyahay idinkoo ummadiina u danaynaya soo saaray Al-Xayaad Pharmacy and Supermarket saadu aragtaan waxay ka kooban tahay qaybo badan oo kala gedisan ama departmentiyo kala gedisan waxay leedahay qaybihii daawada oo inta badan laga helo daawo special ah daawooyinka Yurubta daawooyin heerkooda iyo tayadooda iyo hawadooda iyo cimiladooda la ilaaliyay oo waxaan la kontrolay oo sidoo kale dhammaan daawooyinka xanuunada kala gedisan lagu wada daaweeyo iyadoo ay u joogaan dhaqaatiir kala gedisan oo ka howlgala goobteeda baaritaanka oo inta badan daawadaas u qoran dhaqaatiirta waxay kaloo Al-Xayaad Pharmacy and Supermarket leedahay qaybtii shoppingka iyo udugyada iyo dhammaan waxyaabaadka carabta leh looga baahan yahay guryaha iyo xaafadaha iyo shakhsiyaadka ama dadka bulshadu ay u baahan yihiin sidoo kale waxay leedahay qayb cunooyinka fudud sida waxa la yiraahdo buskudada keegaga iyo waxa la midka alxamdulillah rabbil caalamiin aad iyo aad baa mahadsantiin halkan waxaan uga mahadnaqayaa gudoomiyaha ku-xigeenka farmasiga Al-Xayaad dhakhtarka Al-Xayaad Pharmacy oo deegaankan ka howlgala sida runtii ana dadaal mar walba
ugu heelan dawada dhacday inuu ku gubo meel fagaara ummadda oo dhan joogto hadda keliyana maaha ilaa 3 goor oo hore sidan oo kale ugu soo saaray dawadii dhacday meel fagaara yaro dardaarna waxaan siinayaa bulshada reer Caymeed degmada Buuhoodle iyo degmooyinka kaleba dhammaan waxaan baaq u dirayaa wax alaale iyo wax adduunyaale ma aha dawada kaliya ma dhacdo bagaashka raashinka sharaabka dawada dhammaantood waxaan ugu baaq ugu dirayaa inay sida ay maanta u soo bandhigeen dawadan dhacday dhakhaatiirta halkan nagula sugan ayana ay banaanka u soo dhigaan iyadoo aan ciduna baadhin ciduna fatishin dadku waxa weeye way isku tashadaan waynu isku tashananaa waxeenana waa isku farsamaysananaa haddii ay baydmo وعلى عثمان سبع على دكتور ورقة الفيش عالمي Somali Channel مقالة Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn